السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة الكسر دعوة وركي وجودن بيه سوماليا إيه عالم كوحين كوب الله بدونا أفيانك حكومة حلقارسين تا محمد إبراهيم معلمه وشليه كلها وعميه قرح لقوله أكتيد دقمة وابري قبل كبنادر أي الله قاعد الدلك التركي هالكاس ولقوله تعالي دون حالة دي سعافمات سيدو شاقي أقاسمها ورفافين تحفيز كرئيس الوزراء محمد حسين روبل ليبان عبد علي أو عفيانك حكومة ده أو أبدا لق يقعان أيا كفض سيدي لفليه وحنا دوان قرون كديار ده آذن عبد الله عثمان لوقا قاضيه الديارات خاصة رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبل أيا بلان قاضي إن حكومة أي ددال بدن كبيحين دونته بحنانين تداوعا فيانك أو شلي قف نفتيها اللقاء لبيك صديق قرح أيا لقويره ورك صباحي حفيز كرئيس الوزراء روبل بيكسيق معلمه وحو أبوري دوضة أمني أو حوغن waxaana siyaaday shaki hore loo qabay oo la xiriira in kooxda al-shabaab si daran ugu dhaxmilan yihiin xafiisyada sare ee dawladda Soomaaliya shacab iyo siyaasiyiin si adag kaga carooday weerarka ka dhanka ah macallimo ayaa xafiiska farmaajo iyo taliyii hore ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ku eedeeyay in ay wax ka ogaayeen qaraxa maadaama sidaan oo kale loo bartilmaameedsaday mas'uuliyiintii ugu sareysay warbaahinta qaranka oo hormuud u ahaa in la mamnuuco baahinta waraaqaha sharci darrada ee ka soo baxa xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee waqtigu ka dhamaaday dadka u dhuunduleela howlaha amniga siyaasiyiinta iyo bulshada ka warqabta xaaladaha siyaasadeed ee dalka ayaa howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ugu baaqay inay amnigooda ka taxadiraan inta ay xaaladda wadanku sidaan tahay Maxamed Ibraahim Macallimo wuxuu lafdhabar u ahaa warbaahinta xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuuna door fiican ku lahaa hab qoraalka tabinta iyo bulsho u soo bandhigida xogaha xafiiska wasiirka koobaad ee Soomaaliya dhinaca kalena wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika Vicky Ford ayaa ku dhawaaqday lacag dhan 10.7 milyan oo dollar oo UK ku taageerayso dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ba'an xilli ay booqasho ku joogto Kenya oo qayb ka ah saddex wadan oo ku yaala bariga Afrika oo ay socdaal ku marayso dawladda Ingiriiska ayaa gargaarkan u bixinaysa si cunto degdeg ah iyo biyo nadiif ah loo gaarsiiyo qoysaska nugul ee sida ba'an ula ildaran abaarta aan joogsiga lahayn waxaana qayb ka tahay 17 milyan oo geni oo UK ku taageerayso dalalka Soomaaliya Kenya Ethiopia iyo Suudaanta Koonfureed xaaladda abaarta Soomaaliya ayaa ah mid ka sii daraysa iyadoo in ka badan 90% dalka ay soo food saartay xaalado abaareed ku dhawaad 5 milyan oo Soomaali ah ayaa gaajaysan halka 3.5 milyan oo dadkaasi kamid ahna ay sanadkan u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah taasi oo igu wacan tahay roobabkii baaqday iyo dalag la'aanta dhacday abaar awgeed 2.6 milyan oo qof oo kale ayaa ka qaxay guryahoodii colaad iyo abaar awgeed deeqdan ayaa la filayaa in lagu taageero ku dhawaad 500 oo kun oo qof oo ku nool Soomaaliya si ay u helaan biyo nadiif ah iyo sahay cunto isla markaana uga gaashaantaan isbeddelka cimilada ee gobolka oo dhan sida daran u saameeyay ballanqaadka UK ee ku aadan taageeridda dalalka bariga Afrika waa mid aan lixaad lahayn waxaana ognahay in tallaabada hore ee hadda la qaaday ay ka hortagi karto khasaare ballaaran oo nolosha ayay tiri wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika Vicky Ford safiirka Britain ee Soomaaliya Kate Foster ayaa dhankeeda sheegtay in xaaladda abaareed ee Soomaaliya ay tahay mid daran isla markaana ay malaayiin qof u baahan yihiin cunto nafbadbaadin ah iyo biyo nadiif ah Kate Foster waxay xustay in UK mudnaan siinayso taageerada dadka ay saameeyeen dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran sida abaaraha iyo fatahaadaha si loo fuliyo heshiiskii lagu gaaray shirmadaxeedkii wadamada qaniga ah dalku wuxuu ku jiraa xilli doorasho iyadoo muddadii sharciga ahayd ee hay'adaha dawliga ah ay dhamaatay ku dhawaad hal sano ka hor xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaana labada gacmood ku haya hoggaanka doorashooyinka iyo gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen